ودقنين كسعة قف كست أو حيست آب كان ليراه الصلاة أولا أما صلاة first إيوه مسلم برو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا ترتجع الملودون كاتك جوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالما كهر تلفزيون ذا إيو مواقع ذا لغو كالسونيسي جزيرة وكلا إيو CNN وكلا وحي شيغين مسلم برو برنامج كان آب كان أو صلاة لغا فيرسادو إن ومعلومات كاغا إنو كا قادو وميليتريغا إيو كمبانية ذا واوين إيو دولة ذا FBI ذا إنو كا قادو qaar badan ayaa iska tirtiray qaarna weli macluumaadka maysan gaarin laga yaaba shalidaana qof arkay oo barnaamijku la ugu jiro waxaan ku dhaa iska tirtir maba maqlin oo dhax marka barnaamijkaas maalmo ka hor bil mis laba bil ka hor la sheegay inuu macluumaadka dadka muslimiinta aruuriyo oo dawladaha ka gato oo lacag ku qaado sidii qofkaas muslimka loo soo dabagalo informationkiisana la dhageysto maantana qanaat al-jazeera hadda waxaan ka aqrinayay barnaamijkan cusub oo la yiraahdo as-salaatu awwalan ama sawirkiisu arkaysaan as-salaat first la yiraahdo muxuu sameeyaa kanaba ka sii daranbo macluumaadkaaga inuu qaado oo company Faransiis dawladii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam caysay oo ahayd bidaacadeeda inaan goyno ayuu macluumaadkaaga siina Faransiiska waxa waa simsaar maxalla dalaal waay Mareykanka uu shaqeeyay company-gaasna wuxuu sameeynaa oo simsaarka ah dawladdaas gaalka muslimiinta caayeen madaxweynuhu caay ku jirto information-kaaga inay qaado ay waxay ka sii gidaysaa militariga Mareykanka kuwan toos waxay ay sii gadooyin FBI-da ka sii gadooyin labadaas qol information-kaaga dhan in la qaado macluumaadkaaga dhan in la qaado ayaa iyaga laga gadaa telefoonkaagana wuxuu u helayaa access sidaa darteed qof walba muslim oo barnaamijkaas haysta waxaan rabaa inaan dhaho iska tirtir faa'iido kuma wax kasto sheegaysid waxa ka baqaysid ma ahan laakiin waxa ceeb adoo gurigaaga joogtid oo familkaaga la hadlaysid waxyaalo private ku hadlaysid ama waxyaalo private oo xaaskaaga u qoraysid inay qolo kala qaadato waa ceeb waaye anagoo og muslimiinta inaan buug furan oo dadka wax kasta oo sameynayna inaysan qalad ahayn laakiin maca dalika information-kaaga inuu private ku ahaado muhiim waaye oo aan lagu بالذات dadka tuugada inaysan haysan ama dadka kala dabagala inaysan haysan sida darteed nafteed iitiina waxaan ku dardaarmaa barnaamijkaas oo muslim bro oo hore laga soo hadlay iyo barnaamijkan maanta as-salaatu awwalan ama salaat first qofkii haysto iska tirtir ha khasaaraan ayagana adigii anigii lacag nagu helaan iska tirtir hana khasaaraan ayaga aabiyada kale soo dagso ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan dhaho muslimiin hadana waxaan u baahanahay inaan anaga create gareysano aab ama barnaamijyadan salaadaha laga daawado anaga muslimiin inaan create gareysano masallahan ku tukan inay China noo soo sameeyo wax laga naxwaa runtii waxaa loo baahan yahay marka dhalinyarta inaan ku takhasusno barnaamijkan IT-ga oo aan ka deeqtoono aabadan ay gaalada noo soo sameeyeen salaadeena aabkiga noo sheegay inay gaal noo soo sameeyeen anagoo muslim 1.2 billion ahne wax laga naxwaa runtii marka dhalinyarta waxaan ku waaninaa hal barto IT-ga cilmigan hal barto aabakana hal sameeyo khayr Allah idin siiyo ilaahay waxaan rajeynaa inuu idinku anfaco muslimiinta qof walba u niyeystan ajirkiisa oo hela jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum walaalaha kale u sii gudbi agtaadii u istaagin khayr Allah ku siiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi